السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha iyo qayaalo meel kasta joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Sayla 24 waxaan idin haynaa war gaar ah oo ku saabsan mudaharaadkii saaka ka dhacay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa taliyihii RRU-da ka tirsanaa Mr. Khadar oo ku labisan ciidanka qaranka dareyskiisa iyo calankii Somaliland sidaad aragtaan oo lagu eedeynayo inuu gacan ka hadal fara badan u geystay dad rayid ah oo iyagu mudaharaadka ka qayb qaatay oo aan wax dhibaato geysanin may jirin maanta wax taayiro la gubay mana ay jirin meherado la burburiyay laakiin waxaad wada arkaysaan dhammaantiin ciidamada police-ka oo amar qaba oo dadka shicibka gacan ka hadal fara badan ku sameynayay sidoo kalena xildhibaano xasaanad leh ayaa maanta rasaas lala dhacay musharaxa xisbiga wadani ayaa isaguna ka badbaaday gaari la damcay in la jeersiiyo laakiin ciidanka RRU-da oo dowladda Ingiriisku ay maalgelin ku bixiso ma waxa loogu talagalay argagixisada mise waxa loogu talagalay shicibka halkan waxa idinka muuqda askari dhalinyaro ah oo ciidanka qaranka ku labisan dareyskiisii calankii Somaliland xiran laakiin goobtii loogu talagalay xorriyadda in lagu xusuusto isaguna maanta rasaas gariidaya diyaaradda guudkiisa saaran waa diyaaraddii magaalada Hargeysa duqeysay ee calankii Soomaaliya u saarnaa isaguna maanta 30 sanadood kadib waa askari sita ciidankii qaranka dareyskiisii iyo calankii Somaliland oo dad shicib rasaas ku ridaya waxa kala duwan in ciidii amaamirta bixinaysay diyaaradda ciidii amarkeeda bixisay iyo maanta mudaharaadkan ciidii amarkiisa bixisay in dadka rasaas lala dhaco su'aashuna waxay tahay haddii mudaharaadku ku qoran yahay constitution-ka Somaliland maxaa dambi ka dhigay dadku haddii aanay wax rabshada sameynaynin oo aragtidooda siyaasiga ay ka hadlayaan maadaama cuntadii ay ku qaali garowday biyihii ku qaali garoobeen maxaa rasaasta loola dhacaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isagu leh mas'uuliyadda dhammaan waxyaalaha Somaliland ka dhaca oo dhan maadaama yahay qofka ugu sarreeya talada dalka oo wuxuu noqon doonaa madaxweynayaashii taariikhda ku qortay madaxweyne dalkiisii intuu hanan kari waayay kadibna ka cararay oo dal kale qaxoonti ku noqday mise wuxuu noqon doonaa madaxweyne barasharka siyaasadeed iyo kala duwanaanshiyaha siyaasadeed dul u yeesha oo dalkiisa ku soo celiya tubtii saxda ahayd su'aashaas waxay u taallaa madaxweyne Muuse Biixi taariikhduna waxay qori doontaa wadada oo qaado waa anigoo xabsaaq axmed jaamac idinkaga tegay وحما تراي